عين الصر ولقى ما أركتي البيض نوعني مثلا ما قشي إن بيهدو سيداينين إلى لغسو أقدو هذا مويه إشا عين الصر ومت كيا بسيدتك يد الحيسياشا وأنا مت كمد إله لياب كله دونيدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وآدم كسو دوادا مقالك إنما أنت داوا ضيال والبيوت دبيعي أدع دوقويق فرفرا تاسو كتا لصحارها عد ودن كمصر وحي أهانيسا إشاني بيها مت قلالان أو إنجيجن إلا وكسو دوادا نولي أما نفل دمانتيس معناها سيدا دادك يا حيوان ذا iyo shimbiraha xitaa cayayaanka iyo wixii la midka waxay bilaabayeen biyaha ishani ku jira markaad ka soo agdhawaatid inay kor u soo kacaan si tartiib ilaa ay ka buuxsanto isha taasoo aad ka cabi kartid kana qabiisani kartid in kugu filanna aad ka qaadani kartid. sidoo kale dugaagta iyo noole kastaana uu ka waraabi karo ama ka cabi karo sida ay oga cabaan biyaha ilaha kale ee biyaha ku jira. laakiinse ishani waxay bilaabaysaa markaad ka sii dhaqaaqaysidba in ay gursamaan oo ay qalalaan biyaheedu noqdaanna oo baaba'aan si tartiib arinta la yaabka leh ayaa in il kasto dhulka hoostiisa ee dunidani ku taalo ay habeen iyo maalin kasto soo shubaan ama soo sii daayaan biyahooda ku jira sida aan wada ogsoonahay ilaa ay gabi ahaanba engegaan oo ay joojiyaan biyihii ka soo baxayay muddo kadibna ay qalalaan. ama ishani way ka duwan tahay oo lamid ma aha kuwa kale waayo ma sii daynayso biyaheedu ilaa uu nooluhu u soo dhawaado mooyaane xitaa hadday shimbir yar tahay waxay siinaysaa oo u soo saaraysaa biyihii ku jira gudaheeda ilaa ay ka duusho shimbirtu kadibna ishu waxay bilaawaysaa qalalid oo way engegaysaa. saxaraha farafra ee ishani ku taalo waxay ahayd meel ay u isticmaalaan masaaridii hore xoolaha iyo daaqa si gaar ahaaneed labada waxaana ka buuxo dalagyo beera sidoo kale markay imaadeen Romaaniyiintu Masar waxay dhulkaasi kala wareegeen beeralayda iyagoo markaas xiisaynaya beeraha waxayna ahaayeen kuwa ku tuuro miraha ama xubuubta sababtoo dhulkani waa dhulka ugu wax soo saarka badan waxayna u bixiyeen dhulka badarka. waxay kaloo ahayd halkan ay ku taalo ishani biyaha meel ay safaraydu maraan kuna nisani jiray si ay u cabaan biyaheedu macaan si socod iyo soo socodba. dadkuna waxay dhahaan waa il ama meel uu degan yahay jin waayo ishani wax bad ama webi uma dhawa waa webi aan il biyo lahayn waayo dhulkani waa meel ay jilcan tahay caradeedu xajisana oo qabata biyaha kadib waxay soo fuurayaan biyuhu markuu qofku istaago dhulkaas. intaas ayuu ku eg yahay muuqaalkeena maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. si walaaltinimo waxaan kaga codsanayaa in like-ta aad farta ku adkaysid sharta iyo commentana aad la wadaagtid walaaladaada. mahadsanid.